digirta, masagada, galleyda, sarreenka iyo kuwo kale oo badan waxa ay ka mid yihiin dalagyada ay bulshadeenu beeratay si ay cunto ahaan ugu isticmaalaan. Cuntooyinkaasi waxaa jira habdhaqan ay Soomaalidu u isticmaali jirtay ama u karin jirtay kaasoo sii suulaya kadib markii ay dalka soo gaareen dhaqanno kale oo ay dalal Afrikaan ah u isticmaalaan dalagyadan, sida in hilib lagu dalaco digir, in masago malaay lagu dhex saldaateeyo, iyo in galley iyo oodkac la isku daro. suqaar baa buskeeti weeraray iyo mushaari baa soor u hanjabtay. haddii aad gabaygii uu horay u tiriyey abwaan maka xaaji banaadir aad maqli jirteen, caawa waxaan ka soo hadlayaa goob cuntada lagu kariyo oo baasto iyo bariis ay ku gacan galeen. sida aan ognahay baastada iyo bariiska hilibkii iyo suugadii iyo suqaarkii iyo waxyaabahaas ayaa lagu dalacaa, laakiin cambuulaa tiri fariista. halkan waxaa saaran cambuulo, waa digirtii, salbukadii, sarreenkii. waxaa la rabaa in lagu shiilo oo lagu dalaco malaygii ama kalluunkii iyo dooradii iyo ukuntii iyo dabcan hilibkii ariga ama geela. cuntooyinkaas in la isku darana waa wax runtii aad ugu cusub dhaqanka Soomaalida oo muddooyinkii ugu dambeeyay bilaabanayay. soo dhow walaal, magacaaga adoo ku bilaabaya bal waxaad sharaxaad ka bixisaa sida cambuulada inta hilib ama nooc aad ku dalacdaan oo aad ku samaysaan. cambuulada dhowr nooc aan ku samayn karnaa. waxaa lagu samayn karaa because fish waa lagu samayn karaa, chickenka sidoo kale, kalluun, chicken and beed oo kale, ukuntii oo kale waa lagu samayn karaa. marka dhowr nooc oo kale baxdaa fahanta. marka waa samayn karnaa wixii oo dhan, macnaha nooc walba. hadda dibadaha qaar ay isticmaalaan cambuuladaha qaarka laga isticmaalo Soomaaliya xagga way kala duwan tahay fahanta. marka chickenka waa lagu samayn karaa, fishkii oo kale, hilibkii oo kale, oodkacii oo kale waa lagu samayn karaa asigana. dhowr noocaa jirta oo lagu samayn karaa. marka cambuulada iyo dalagan dalka ka soo go'aa in caadi loo cuno oo sonkor iyo saliid lagu darsadaa Soomaalidu ay taqaanay, maqaaxi ahaan idinkaa qorshahan keenay oo meel kale ka soo qorshahan anaga keenay dibadda dhowr makaan wadamada Carabta iyo meelaha aan ka soo shaqeeyay. dhowr kuugaan la soo shaqeynay. marka cuntadan waan naqaanaa si loo sameeyaa, habka ay ku soo baxayso. dhowr nooc waan samayn karnaa insha Allah. hadda seebay dadka u xiiseynayaan marka way xiiseynayaan dadka. dad badan oo imaada custom ah maalin walba sameynaa si inuu imaadin customka. marna way naga dhamaataa, marna macnaa in yar uma sameynaa iyadana way dhamaataa. sokor iyo saliid iyadoo lagu cunaayo ma dadka seebay u isticmaalaan? maya sokor iyo saliid hadda dadka badi way ka cagan yihiin ma cunaan. hadda kalluunka waxay xiiseeyaan iyo chickenka. bal marka hadda cuntooyinkan meeshan yaalla noo sharax. marka cuntooyinka meesha waxaan kugu sharaxayaa inta salbuka ah, inta sarreen ah, intii kan waa fishkii dhowr nooc lagu samayn karaa. fishka kalluun, kanna waa digirtii, kanna waa chickenkii. intoo kale kanoo kalena kalluunkii waa lagu samayn karaa asigoo finger ah, asigoo caadi ah waa lagu samayn karaa. marka tani waa salbuko, tani waa sarreen, fishkii, kana waa digirtii. marka galleyda caaw maana samaynin, galleyna way jirtaa. waxaa lagu daraa iyadana chicken oo lagu samayn karaa, fishkii. hadba say dadku u soo dalbadaan ayaan u samaynaa. Cabdulqaadir Nuur Daa'uud oo ka mid ah maamulka Brimo Plaza ayaa ka sheekeynaya xilliga ay bilaabeen in dalagyadii ay Soomaalidu kaliya ku cuni jirtay sokorta iyo saliidda ay suugo iyo suqaar u yeelaan iyo sida ay dadka ku xiran u arkaan. waxaan u mahadcelinayaa bahda 5TV oo caawa boqoshana u yimaadeen. cunooyinkan dalaga ah oo badiba hadda bulshadu aad u isticmaalaan. sidii hore loo isticmaali jiray waa laga casriyeeyay, waxaa loo isticmaalaa qaabab kala duwan. cunooyinkaasi oo dalaga hadda aan oo baxo waxaa kamid ah sarreentii, digirtii iyo qamadigii iyo salbugtadii. marka qaabka hadda loo isticmaalo sidii hore markii hore Soomaalida waxaan isticmaali jirnay qaab ah in dadkii ay ku isticmaalaan saliid, laakiin hadda waxaas waa laga gudbay oo waxaan isticmaalnaa
digirtii qamadii oo kale waxaa lagu soo daarteen karaa wax loo yaqaano hilibkii kalluunkii iyo sidoo kale jikinkii intaasaa marka lagu soo daartayaho waxayna ka timaaday dalabkaasi waxa waaye hadda Africa waxaa loo yaqaanaa oo kale ii sheeg badan waxaa laga isticmaalaa maharago marka sidaas awgeed marka dalabkii imaaday waxa waa waan sameeynayo dadkiina aad bay ugu xiran yihiin oo habeen walba waxa waaye inta custom imaado ku xiran oo dalabka u baxan waxa waaye sidii hore si ka duwan ay u baxaa cunooyinkan hadda baastada iyo bariiska kale waa la isticmaalaa laakiin dadka uma badna wayga u badnaa waayna waxaa kamid ah ii sheegeen cunooyinkan hadda oo dalka ka baxa oo diet-ka ka mid yihiin sidoo kale waxaa dadka soo qoraba qodooyinkan gymka oo macallimiinta waa soo qoraan waxa waaye badi intaas kuwaas la isticmaalaa oo asxaabtii gymka soo qorto dadkii diet ahaan waxa caafimaadkii uma rono baasta iyo bariis habeen walba inaa cuntid marka hadda waxa waaye cunooyinka dalka loo soo wada guuray oo dadka ay fahmeen in isticmaalaan magaalada muqdisho oo ay muddooyinkii ugu dambeeyay kusoo laabanayeen dadkii Soomaaliyeed ee horey uga qaxay ee qurbaha aaday ayaa waxaa kusoo badanayay dhaqano kala duwan oo ay dadkaasi ka soo minguuriyeen dalalka ay ka yimaadeen waxaana cajiib ah xitaa haddii aad maqaayadaha iyo hoteelada qaar ee magaalada muqdisho uga baahatid cunto Shiineys aad isla markaasba ka helayso maxamed soo faysana 5 TV muqdisho